muuqaalkeenu maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa applicationada ugu fiican bishan soo dhawaada haddaba. السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada waa mar kale iyo taxanaheeni applicationada ugu fiican bishan aynu ku jirnana waxaynu ku soo qaadan doonaa 4 application oo aad u anfici doona aanad ka faa'iidi doontid wax fara badan. haddaba si toos ah aynu bilaabano muuqaalkeena kana bilowno abka koobaad. haddaad tahay qof aan isticmaalin YouTube Premium oonad jeceshahay inaad dhegaysato cod ahaan muuqaalada YouTube amaba ay ku baxo backgroundku marka uu taleefankaagu dansan yahay amaba uu ku jiro log, waxaan ku hayaa application ku qabanaya shaqadaas. applicationkan waxaa la yiraahdaa Audio Tube. sidaad ka dareemayso magacana waxa aad ku dhegaysan kartaa muuqaalada ku jira YouTube qaab audio ah amaba cod ah. si fudud waxaad raadisaa muuqaalka aad u baahan tahay inaad dhegaysato. tusaale ahaan waxa uu noqon karaa hees, kadibna waxa aad daartaa muuqaalka. sidaas ayaanu ku baxayaa codkii oo aad ku dhegaysan kartaa. waxa aanad ku xiri kartaa haatan taleefankaaga log, waxa aad maqli kartaa oo ku baxaya codka muuqaalkii aad daaratay. nasiib xumase abkani kuma jiro Play Store, balse waxaad kala degi kartaa Chromekaaga amaba Telegram channelkeena, waxaanad ka helaysaa linkiga description. haddaba haddaad tahay qof jecel featurekan aadka u muhiimka ah, isticmaal abka loo yaqaano Audio Tube. applicationka xiga waxa la yiraahdaa Who Took My Phone. sidaad ka dareemayso magacana applicationkan waxa uu ku sheegayaa qofka qaatay amaba taabtay taleefankaaga marka aad kaga tagto meel. tusaale ahaan haddii ay jiraan dad taleefankaaga isticmaala marka aad ka maqan tahay. sidoo kale isaga oo ka qaadaya sawir marka ay isku dayaan inay furaan logga ama passwordka taleefanka. haddaba abkan si fudud waxaad ku ogaan kartaa qofka furay ama isku dayay inuu isticmaalo xilliga, sidoo kale uu isku dayay inuu furo iyo applicationada uu isticmaalay amaba uu soo furay. waxaanad ka helaysaa xogtaas oo dhan applicationkan Who Took My Phone. sidoo kale waxa uu ka qaadayaa applicationkani sawir front cameraha ama kamarada hore ee taleefanka, mana dareemayo qofku inuu ka qaaday sawir. si fududna waxaad ka ogaan kartaa qofkii. haddaba sidoo u shaqeynaya applicationkan, ugu horreyntii waxaad la soo degtaa applicationka, kadibna soo furo abka, waxaanad ku dhufataa buttonkan oo alowdhe si uu u shaqeeyo marka aad u baahan tahay. kadibna waxaad ku xidhataa log taleefankaaga. qofkii isku daya inuu furo taleefankaaga si uu u isticmaalo waxa uu ka qaadayaa sawir. isticmaal haddaba abkan Who Took My Phone si aad u ogaato dadka isku dayay inay furaan ama isticmaalaan taleefankaaga adiga oo aan ogeyn. haddaad tahay qof jecel sawiraanta freega ah amaba sawiraanta loo yaqaano free stock ee aan lahayn wax copyright ah, waxaan ku hayaa application aad ka heli karto sawiraan free ah misana aan lahayn wax copyright ah. applicationkan waxa la yiraahdaa PEXELS. waxaanad ka helaysaa sawiraan free ah misana high quality ah. sidoo kale applicationkan waxaad ka heli kartaa sawiraan wallpapers ah oo kala duwan oo kartana shaashada taleefankaaga. sidoo kale haddaad tahay qof photographer ah, waxaad isticmaali kartaa abkan si aad ugu soo bandhigto sawiraanta aad qaaday. applicationkan waxaan oran karnaa waa abka ugu fiican dhanka free stock photoska ama sawiraanta bilaashka. sidoo kale PEXELS sidaynu naqaano waa mid ka mid ah website-yada laga helo fiidiyoyada bilaashka misana aan lahayn wax copyright-ka. waxaana jira muuqaalenu ka sameynay, waxaad ka helaysaa description-ka hoose muuqaalkaas. applicationkan PEXELS waa free, mana laha waxayeysiis ah. haddaba isticmaal abkan si aad u hesho sawiraan bilaasha misana high quality ah. aynu gudubno applicationka xiga. abka xiga waxa la yiraahdaa Rush Hour 3D. sidaad ka dareemayso magacana applicationkan waa game aad ku ciyaari karto taleefankaaga. gamekan waxa weeyaan car driving amaba waxa weeyaan game gaari ah. si fudud applicationkan shuruucdiisu
waxa weeye inaad gaariga u wado si xooga sidoo kalena aad isku daydo inaanad jirin amaba ku dhicin gawaadhida kale waa intaas shuruucda gamekan waxaana weeyaan application runtii aad ka heli doontid wax fara badan gamekan rush hour waxa uu leeyahay levels kala duwan iyo ciyaaro kala duwan midba midka ka dambeysana waa ka si adag yahay waan ka si xiiso badan yahay sidoo kale gamekan waxa uu leeyahay qayb la yiraahdo cyber kaas oo waqti lagu qabanayo adiga oo sida bam hadaba isticmaal gamekan rush hour halkaas inoo joogi doona maanta muuqaalkeena ku saabsanaa applicationada ugu fiican bishan hadaad ka heshay muuqaalka fadlan like subscribe na dheh kanalka waa aniga Khalid Abdulrahman oo idin leh nabaday